بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعنا وناكسن أصحابتان وجعلنا يو كسو دوادا مقال كوبان عن كجهد للدورنا دافع كوحدة كوبدا عكت برشلونة كلمة الإنجليز وكهاد لي وحا يوبانتاي برشلونة سي وجوليسته ريال كالليغا دافع رير فرنسي كوحدة برشلونة كلمة الإنجليز ayaa sheegay in kooxdiisa Barca ay u baahan tahay in ay hesho dhibco badan si ay ugu guuleysato horyaalka La Liga ee dalka Spain. Barcelona ayaa ku hogaaminaysay 18 dhibcood miiska kala sareynta horyaalka La Liga ka hor inta aan la joojin sababo la xiriira caabuqa coronavirus, halka Real Madrid oo kusoo xigtay ay aruursatay 56 dhibcood. horyaalka La Liga ayaa markale la filayaa in dib loo ambaqaado 11 bisha June ee soo socota, waxaana la filayaa in la soo gabagabeyn doono 19 July sida uu xaqiijiyay madaxweynaha La Liga ee Xavi Artebas. wargeyska Marca ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay kalaminta Ingrid, waxaana hadaladiisa kamid ahaa soo laabashada horyaalka La Liga wuxuu noqon doonaa tartan cusub oo 11 kulan ka kooban. waa in aad heshaa dhibcaha ugu badan si aad ugu guuleysato. waxay u muuqataa sida in aad ka bilaabanayso meel eber ah. waan ogahay in ay khatar tahay in lagu ciyaaro kulamo badan laba bilood gudahooda, laakiin waxaan isku diyaarinaynaa sida ugu fiican ee ugu macquulsan, ayuu sii raaciyay hadalkiisa daafaca Barca ee Clemente Lenglet. muddo dheer kadib horyaalka dalka Spain ayaa dib la isugu soo laaban doonaa. xogta kulanka ugu horeeya ee kooxda Barca ayaana la shaaciyay. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la ciyaari doonta kulankeeda ugu horeeya kooxda Real Mallorca taariikhda markii ay tahay 13 June Sabti, saacada Geeska Afrika ay ku beegan tahay 10 habeenimo xilliga Geeska Afrika. muuqaalkii koobnaa waa iga inta dib inta u kulmi doono. waa saaxiibkeen Ismaaciil Saxafi oo leh maalin wanaagsan.